السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري بعد صاحبي يا لمانتينا حافل أنا تعافمات قبطان سيدان هرب وذا بلناي waxaan hore idinkaga balan qaaday inaan kasoo sameyn doono muuqaal isbedelada maanta shirkadda ku dhacay iyo sanad guuradii maanta ay shirkadda ugu dabaaldegayso oo kasoo wareegatay 10 sano taasoo macnaheedu tahay inay Bluefix ay 10 sano jirsatay oo ay maanta u buuxsantay 10 sannadood oo xiriir ah ee shirkaddan ay shaqeynayso. Maadaama maanta shirkadda ay u dabaaldegayso 10 sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskeeda waxay barnaamijyadeeda maalgelimaha ay kusoo kordhisay barnaamij cusub oo one time fee ah. Muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sida barnaamijkan u shaqeeyo, habka uu uga faa'iideysan laheeday, barnaamijyadii kale monthly subscription-kii jiray iyo kan hadda ay soo kordhisayna wuxuu ka kala duwan yahay. Sidoo kale waxaa xusuus mudan in barnaamijkani ama hadda akoonkan cusub ee hadda kusoo kordhiyeen oo ay limit time uu yahay oo maadaama kaliya loogu talagalay in ay shirkadda traderskeeda kula dabaaldegaan 10 sano guurida kasoo wareegatay. Sidaas darteed ayaa akoonkan loo abuuray. Sidoo kale waxaa xusuud mudan in isbedelo weyn uu soo isagana uu dhici doono insha Allah bilaha nagu soo aadan oo ku saabsan ayagana akoomankan monthly subscription-ka ayagana waxyaabo badan laga bedeli doono. Marka barnaamijka hadda gudaha u gaagano ama aan ka hadalno warbixinada aad ugu baahan tahay barnaamijkan cusub ee maanta shirkadda soo kordhisay sida hadda joogno ama sida hadda muuqaalka aad ka daawanayso ama shaashada ka daawanayso waxaan joognaa qaybta ay ku qoran tahay Bluefix University oo ah akoomanka cusub ee hadda shirkadda soo kordhisay. Markii aad qaybta kore click ku siiso waxaa kuu soo bixi doona faahfaahintaani oo ah meeshaan waxaa ku qoran Bluefix is 10 years old 10 sano ayay maanta jirsatay. For our 10 years anniversary we created a brand new package for a limited time only. Sidoo kale hadalka meesha ku qoran waxay tahay maadaama aan 10 sano ay guursatay 10 sano ay kasoo wareegtay aasaaska shirkadda waxaan soo sameynaa ama soo saarnay package cusub. Packagekan waxaa waaye mid limited time ah. Haddii aan dib u sii socono oo aan isla fiirino waxyaabaha cusub ee barnaamijkan ku saabsan yahay sida ujeediin waa kana akoonkii iyo faahfaahintiisa. Ma rabo aniga inaan qaybtan website-ka aan sharaxaad idinkaga siiyo. Waxaa laga yaabaa dad badan inay ku wareeraan oo qaabka barnaamijkan iyo waxaan u shaqeynayo oo ay fahmi waayaan. Sidaas darteed waxaan go'aansaday muuqaal yar ama isaad yar ku saabsan barnaamijkan iyo qaabka uu u shaqeeyo inaan niila share gareeyo halkaas oo is leeyahay qaabka kaliya ama wadada ugu fudud ee dadka ku fahmi karaan waaye. Sidoo kale waxaa xusuud mudan akoonkan cusub oo hadda la soo kordhiyay waa $20,000 sida meeshaan ugu jeedid waa akoon qiimihiisu uu yahay $20,000 waana akoon real ah maaha akoon demo ah. Marka akoomankii kale oo monthly subscription-kii ahay sidiisii ayay u jiraan oo akoomankii hore haddii aad haysato akoonkan one time fee-ga haddii aad rabtana waad furo kartaa. One time fee-ga laakiin hal mar kaliya ayaa lagu ogol yahay oo macnaheedu waxay tahay hal akoon inaad ka qaadato kaliya ayaa lagu ogol yahay. Laakiin haddii monthly subscription-ka aad haysato 25k ama 50k aad haysato sidoo kale akoonkanina waad qaadan kartaa laakiin akoonkani laba akoon laguma ogolo. Haddii muuqaalkeena aan bilaabno oo sharaxaadeena aan bilaabno sida meeshaan inoogu qoran hadda akoonkan cusub waa akoon qiimihiisu ama lacagta balance-giisu ay ku jirto ay tahay $20,000. Markii aad isdiiwaan geliso oo lacagtii subscription-kii aad bixiso akoonka aad heli doontid waa akoon ay ku jirto lacag dhan $20,000. Marka $20,000 waxaa ku trade gareyn kartaa sida meeshaan ku qoran major payrska iyo minorka oo lacagaha forex-ka ah. Sidoo kale waxaa soo raaca goldiga. Dhammaan lacagahan meeshaan u jeedid payriskooda ama kuwa quotaskooda kuwa gadaal ka raaco ayaad ku trade gareyn kartaa. Macnaheedu waxaa ka wadaa haddii aad CHF ay tahay lacag walba oo CHF gadaal ka raacdo waa ku trade gareyn kartaa oo CHF GBY camal ayaad ku trade gareyn kartaa. Haddii aan fiirino USD camal lacagaha USD oo idil ayaad ku trade gareyn kartaa. Tusaale ahaan USD CAD aan dhahno. Marka lacagahan oo dhan waxa waaye lacagaha gadaal ka raaco oo quotaska uu noqonayo oo gadaal ka raaco dhamaantood ayaad ku trade gareyn kartaa. Sidoo kalena waxaad ku trade gareyn kartaa goldigana waa ku trade gareyn kartaa. Marka akoonkani cusub akoonkii hore wuxuu ugu duwan yahay leverage-kiisii waa 1/5
leverage-kiisii waa 1/5 haddii aad xasuusato kii kalena leverage-kiisii wuxuu ahaayey 1/3 midka caadiga monthly subscription-ka taas macnaheedu marka waxay tahay xagga leverage-ka marka la fiiriyo inuu akoonkani ka weyn yahay badanaa dadka ma fahansano dad qaar waxaa ku arka loodka waa xadidan yahay ku dhahayo loodka xadidaadiisa waxaa keenayo leverage the more oo leverage-ka uu yar yahay oo akoonka leverage-kiisa uu yar yahay waa the more loodkaaga uu xadismayo macnaheedu waxa waaye leverage-ka oo yar awgiisii ayaa loodkii xadidaada u saaran tahay ee ma aha shirkadda inay xadidaad saartay oo loodka xadidaad ayuu ku jiro dhankooda kale shirkadahan dhan ee sida tooska ah ee maalgashiga u bixiyo dhammaantood ayuu xadidaadani ka jirtaa muhiimadda ugu weynna waxay tahay muhiimadda ugu weyn ee saas u sameynayaanna waxay tahay maadaama dadka wax challenge laga qaadaynin oo qofka wax imtixaan uusan soo maraynin probability ama marka la fiiriyo qiimeyntana oo qofka akoonka ku khasaaraya faa'iida aanan la aqoonin waxay ku khasban yihiin lacagtoodii inay ilaalsadaan si aysan riski weyn usoo gaarin marka waxay ku khasban yihiin inay ku siiyaan leverage macquul ah oo tusaale ahaan 1/3 iyo 1/5 aan dhahno oo qofka lacagna ku sameyn karo khasaare weynna uu akoomankooda u geysanayay muhiimadda shirkadahani dhammaan ee leverage-ku u wada yaryihiin waa taa maadaama wax challenge qofka aysan ka qaadaynin shirkadda markaas xaq ayay u leedahay lacagteeda inay kaa ilaalsato maadaama wax imtixaan aysan kaa qaadaynin so marka fursad waxay ku siinayaan oo leverage-kooda uu yar yahay ama 1/3 ha ahaado ama 1/5 ha ahaado ama 1/10 ha ahaado si aad 1/5-kan ama 1/3-ga leverage-ka ay ku siiyaan aad lacag ugu sameyso markii leverage-kan loo fiiriyana faa'iido waa ku sameyn kartaa oo targetkii ay shirkad walba kugu talgashan waad ku gaari kartaa sidoo kale shirkadaha danta ugu jirta ayadana waxay tahay khasaarahoodana khasaare weyn ma soo gaarayo oo khasaaro ay ka kaban karaan ayaa soo gaaraya marka taas waa sababta shirkadaha odil ay mar walba leverage-kooda u xadidan yahay oo ay leverage yar ku siinayaan aysan ku sii karin leverage weyn oo 1/100 that's why waa shirkadaha kuwa challenge-ga qaado marka imtixaanka ay kaa qaadaan oo imtixaanka ay ka baasto ay leverage weyn ku siiyaan waayo already dadkaas imtixaan ayay kaa soo qaadeen oo 2 challenge ayaa soo martay 2 challenge markaa soo martay kadib waxay kugu aamini karaan ama waxay kugu aamini karaan in akoomankooda ay kugu dhiibaan waayo already waxaa tahay qof 2 imtixaan kasoo baasay oo faa'iido 10% ama 8% wax alaala waxay tahay soo sameeyey marka shirkadahani badanaa kuwan caadiga ah ayagana waxa waaye leverage-kooda ayaa xadidan leverage-ka sababta u yeelayaana waxay tahay in akoomankooda ay khasaarada meelihiisa soo gaaraya ay ka ilaaliyaan maadaama qofka akoonka loo dhiibay aysan wax imtixaan ah iyo wax challenge aysan marsiinin marka haddii aan kasoo gudubno akoonkan leverage-kiisa waa 1/5 sidaan hore kugu soo sheegay khasaaraha guud ee lagu ogol yahay akoonka waa $800 macnaheedu waxay tahay ma jiro daily drawdown wax daily drawdown ah ma jiro daily drawdown dhan ma jiro kaliya waxaa jiro total drawdown ama sida u taqaanid maximum drawdown ayaa jiro marka ma jiro wax daily ma jiro haddii marba akoonkaasi aad khasaarada $800 u geysid hawada ayaa ka bixi doontaa oo akoonkaas ma sii wadi doontid khasaaraha lagu geli waa $800 $800 mar haddii aad khasaaro u geysatana akoonka ay kaa cesho doonaan sidoo kale waxaa jiro initial profit target oo ah faa'iido lagaa rabo inaad akoonka ku darto faa'iidada akoonka lagaa rabo inaad ku darto waa $2,000 $2,000 ayaa lagaa rabaa inaad akoonkani ku darto marka $2,000 oo aad akoonkii ku darto faa'iidada waxaa loo qaybsan doonaa 50-50 oo ah $1,000 adiga ayaa iska leh $1,000na shirkadda ayaa iska leh marka $2,000 waa markii koo hore aad subscription-ka bixiso oo akoonkani aad gadato akoonkan qiimihiisii qaybta dambe ay ku arki doonaa markii akoonkii aad gadato oo $20,000 aad akoonkii aad hesho oo lacagtii subscription-ka aad bixiso waxaa lagaa rabaa inaad sameyso $2,000 $2,000 waxaa lagaa rabaa inaad ku sameyso 40 beri gudahooda 40 beri gudahooda ayaa lagaaga rabaa inaad $2,000 ku sameyso marka haddii 40kan beri
oo aad ku samayn weyso gudahooda 2,000 oo doolar akoonkaagii waa lagaa cancel gareynaa. Inaan si fiican iskula fahnaa rajeynaa. Waxaan ku dhahay markii akoonkii 20,000 aad qaadato waxaa lagaa rabaa faa'iido 2,000 oo doolar inaad ku darto. Faa'iidada 2,000 oo doolar haddii aad samayso waa okay. Haddii aad samayn weyso oo 40 beri gudahooda aad ku samayn weyso 20,000 oo doolar aan dhahay 2,000 oo doolar sorry 2,000 oo doolar haddii 40 beri gudahooda aad ku samayn weyso akoonka cancel ayaa lagaaga sameynaa, waa lagaa cancel gareynaa. Haddii aad ku samayso oo 2,000 aad ku samayso sidoo kale waxaad u gudbi doontaa Bluefix contract trader oo waxaa noqon doontaa Bluefix contract trader. Markaasi 40 beri weliba kadib waxaa lagaa rabaa inaad samayso 1,200 oo doolar. Meeshaan inaan si fiican iskula fahnaa rajeynaa. Waa meeshaan qaabka nidaamka iyo akoonka u shaqeeyo waay. Mar labaad aan kusoo celiyo waxaan iska tirno. Tusaale aan iska dhaafano oo waxaan inaad dadku wareeraan la yaabaa. Concept yar kaa siinaa qaabka barnaamijkan waxaan u shaqeeyo. So halahan waa isla soo fahnaa oo lacagaha akoonka lagu trade gareynayo iyo leverage-kiisa iyo khasaaraha lagu ogoliyo. Marka waxaa rabaa initial profit target-kan iyo subsequent profit target-kan inaan sharaxaad fiican ka bixiyo iyo 14 trading days-kan. So barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay saddexda ugu muhiimsan waa saddexdan inaan si fiican iskula fahno ayaa rajeynaa. Marka haddii aan iska remove gareeyo aan ka soo qaadno akoonka waxaan gadanay 20k gaan gadanay oo lacagtii subscription-ka ayaa bixinay. Lacagta subscription-ka markii aad taas u bixiso waxaa lagaa rabaa faa'iido 2,000 oo doolar ah akoonka inaad ku darto. Faa'iido 2,000 oo doolar akoonka inaad ku darto oo akoonka inaad ka dhigto 22,000 oo doolar inaad akoonka ka dhigto ayaa lagaa rabaa. 22,000 oo doolar 2,000 oo doolar waxaad haysataa 40 beri. 40 beri ayaad haysataa. 40 beri gudahooda ayaa lagaa rabaa inaad 2,000 oo doolar aad ku darto. Okay? Haddii 2,000 oo doolar aad 40kaas beri gudahooda ku darto waxaad noqon doontaa ama waxaad u gudbaysaa Bluefix contract trader. Bluefix contract trader. Markaa meeshaas u gudubto oo aad darajadaas u gudubto kadib meeshii 2,000 oo doolar ahayd way isbedelaysaa. Oo kaliya waxaa lagaa rabi doonaa inaad samayso 40 beri walba kadib 1,200 oo doolar oo kaliya. 1,200 oo doolar oo kaliya inaad 40kaas beri aad samayso ayaa lagaa rabaa. So 40 beri waliba kadib akoonkaagii waa la fiiri doonaa. 40 beri kadib akoonkaagi waa la fiirinaa waxaa lagaa rabaa in 40 beri kadib aad faa'iido 1,200 oo doolar akoonkaagii ay ku jirto. So qaybtan hadda soo laabto mar labaad ku soo celiyo akoonka waa 20,000 oo doolar. 20,000 oo doolar markaad qaadato waxaa lagaa rabaa faa'iido 2,000 oo doolar akoonka inaad ku darto. Faa'iidada 2,000 oo doolar waxaa lagaa rabaa 40 beri gudahooda inaad ku samayso. Haddii aad 40 beri gudahooda aad ku samayso Bluefix contract trader aad noqonaysaa. Bisha kale xigto lacagtaadina waa la bixi kartaa oo 1,000 doolarna adaa qaadanaysa 1,000 doolarna shirkadda ayaad qaadanaysaa. Lacagtaada waa la bixaysaa. So markii shirkadda lacagtii adiga aad kala qaybsataan wixii ka dambeeya waxaa lagaa rabi doonaa 40 beri walba akoonkaaga inaad 1,200 oo doolar aad ku darto. Haddii 1,200 oo doolar aad akoonkaaga ku darto withdrawal-kii waa samayn kartaa. Meeshaani oo 2,000 oo doolar haddii 40 beri gudahooda aad ku samayn weyso 40 beri gudahooda aad ku samayn weyso akoonkaagii waa lagaa cancel gareynaa oo akoonka waa lagaa xiraa. Haddii 2,000 oo doolar aad 1,000 doolar aad samaysana marka labaad oo aad soo qaadanayso akoonkaani waxaad heli doontaa 50% oo discount ah. Waxaan rajeynaa saaxiibayaal inaad si fiican iskula fahno. So waxaan ku dhahay akoonkan 20,000 oo doolar ayaad qaadanaysaa. 20,000 oo doolar markaad qaadato waxaa lagaa rabaa 2,000 oo doolar inaad ku darto 40 beri gudahooda ayaad haysataa. Marka 40kan beri gudahooda haddii aad 2,000 oo doolar faa'iido aad ku darto oo akoonkii aad samayso ama ka yar 40kan beri aad 2,000 oo doolar ku samayso waxaad u gudbi doontaa darajada labaad oo waxaa noqon doonta lacagtaadii ayaa la bixi kartaa oo lacagtii 1,000 doolar ayaa dhankaaga kusoo aadayso 1,000kaaga doolar ayaad qaadanaysaa. Marka 1,000 doolar aad qaadato wixii ka dambeeya markaasi waxaa lagaa rabaa 40 beri waliba akoonkaaga 40 beri maalin waliba marka 40 beri kadib
in akoonkaagii faa'iido $1,200 ah aad ku darto. haddii aad ku dari weyso 40 beri waliba $1,200 akoonkaagii sidoo kalena waa lagaa xiri doonaa. inaa meeshaas fiican isku fahanaa rajeynaa. marka haddii dhankan kale aan soo laabano, haddii $2,000 aad samayn weyso oo 40kan beri uu kuugu dhamaado, sidoo kale akoonkaagiina waa la cancel gareyn doonaa. haddii $2,000 aad samayn weyso oo tusaale kasoo qaad $1,000 aad akoonkii ku dartana, waxaad heli doontaa fursad retake ah oo dib u celin aad akoonka ku samayn karto, oo mar labaad aad dib usoo gadanayso. marka labaad aad dib usoo gadanaysana 50% oo discount ah ayaad helaysaa. 50% oo discount ah ayaad helaysaa. haddii $1,000 ka yarna markaas aad samayso, waa inaad lacagta full ah aad iska bixisaa. waxaan rajeynaa hadalkaasi waxba isma dul saarno, oo si fiican in loo wada fahmaa rajeynaa, aysan su'aale iyo wax ka imaanin. si mar labaad iyo mar saddexaad aan si fiican idinkula fahansiiyo, waxaan isku dayi doonaa inaan mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraad wixii noqotaba aan ku celiyo si fiican dadka ay u wada fahmaan. waxaan ku dhahay akoonkan $20,000 waaye. lacagta subscription-kii ayaad bixisay. $20,000 ayaad heshay. okay, waa isla fahanaa filaa. waxaa lagaa rabaa inaad akoonka ku darto $2,000 oo faa'iido ah. $2,000 oo faa'iido ah. $2,000 faa'iido ah markaad ku darto, $2,000 si aad ugu darto waxaad haysataa 40 beri, 14 days. okay, si fiican inaan iskula fahnaa rabnaa. 14 days, 40 beri ayaad haysataa. 40kaas beri ayaa lagaa rabaa inaad akoonkaani $22,000 aad ka dhigto. haddii aad ka dhigto waa sidii la rabay, waa okay. qaybta labaad ayaad u gudbaysaa. okay, qaybtan labaad hadda waa kuu sharxaa. haddii aad ka dhigi weyso oo aad tusaalaha $2,000 aad samayn weyso oo aad $1,000 samayso, $1,000 aad samays kasoo qaad, $1,000 aad samaysay, 40kii beri laguu qabtana wuu kaa dhamaaday. 40kii beri laguu qabtana wuu kaa dhamaaday. akoonkaagii waa lagaa xiraa, oo waayo waqtigii laguu qabto waa ku samayn weysay. maadaama waqtigii laguu qabto ku samayn weysay, laakiin faa'iidada aad samaysay ee 50% ay tahay oo $1,000 akoonkii aad ku dartay, mar labaad haddaa akoonkan qaadanayso waxaad heli doontaa discount 50% ah. macnaheedu waxa waaye akoonkii haddii tusaale ahaan $300 iyo xoogaa $50 haddaa ka bixiso, tookada labaad haddaa gadanayso $150 keliya camal ayaad bixinaysaa. $150 camal ayaad bixinaysaa oo 50% discount ayaad haysataa. haddii $1,000 wax ka yar aad samayso oo $800 aad samayso, tusaalahan kasoo qaad $800 aad samayso, waqtigan oo kaa dhamaado, 40kii beri oo kaa dhamaado, akoonkii waa lagaa xiraa. tooka labaad haddii aad akoonkan qaadanayso oo aad kusoo ceshanaysana, lacagta full ayaa bixi doontaa. keliya 50%kan waxaa heli karo qofkii akoonka $1,000 ku dara ama $1,000 wax ka badan ku dara, qofkaas ayaa 50% heli doona oo discount ah marka labaad oo akoonka uu soo qaadana. so qaybtaani hadda waxaa kuugu sharxay haddii lacalla aad $2,000 aad gaari weyso waay. haddii lacalla waxaa ku dhahay haddii lacalla aad akoonkii $2,000 aad ku dari weyso oo waqtigii uu kaa dhamaado, akoonkii waa lagaa xiri doonaa. haddii $1,000 camal aad samaysana 50% oo discount ayaad helaysaa. haddii $1,000 iyo wixii ka badan haddaad samayso 50% discount ayaad helaysaa. $1,000 iyo wixii ka yar haddaad samaysana, lacagta full waa inaad bixisaa. midda labaad ayadana waxay tahay akoonkii waa baasgareeyey. qaybtaani waxa waaye qaybtii akoonkii aan ugu guuldareysto haddii aan samayn waayo. haddii aad akoonkii aad $2,000 faa'iidadii ayaa ku daray leh, tusaale ahaan $2,000 ayaad faa'iidadii ku dartay. $2,000 faa'iido markaad ku darto oo aad 40kii beri gudahoodana aad ku samayso, qaybta xigta $2,000 way kasoo yaraan doontaa oo 40 beri walba kadib waxaa lagaa rabaa keliya $1,200 inaad akoonka ku darto. $1,200 inaad ku darto meeshii 2,000 ee lagaa rabay. marka qoladaani ayaga waxay sameynayaan risk teamka, 40 beri waliba kadib akoonkaagii waa la fiiri doonaa oo dib u qiimeyn ayaa lagu samayn doonaa. haddii 40kaas beri oo akoonkaagii $1,200 aadan ku darin
akoonka way kaa xiri doonaan. Waxaan rajeynayaa in qaabka u shaqeeyo aan isla fahnay oo si fiican aan kugu soo celceliyey oo aad si fiican igula fahantay. Marka waxaan samayn doonaa islaadkeeni ayaan ku laaban doonaa. Waxaan ku dhahay meeshan khasaaraha lagu ogaaleyo waa $800. Faa'iidada kuwa lagaa rabo waa akoonka inaad ku darto $2000 waaye. Haddii aad baas gareysanahay oo qaybtani aad baas gareyso oo $2000 aad 40 biri gudahooda ku samaysana qaybta labaad faa'iidada lagaa rabi doona bil walba waxay noqon doontaa $1200 ayaa lagaa rabi doonaa. Sidoo kale waxaa xusuud mudan si meel walba aad targetka ku gaarto waxaad jaanis haysataa 40 biri ah. Marka the more oo 40 biri walba kadib akoonkaagiina waxaa laga rabaa inuu $1200 uu ku jiro si akoonkaagii uu u badbaado oo aadan wax khaladaad iyo wax sameyn. Marka akoonka waa akoon live ah oo si toos ayuu live u yahay ma aha demo akoon real waaye. 24 sac ayaad trade gareyn kartaa. Akoomanka kale oo subscription kale wuxuu ugu roon yahay haddii aan la wada socotaan lacag bille ayaa la iska rabaa. Lacag billaha waxaa kusii dheer 50k camal 25k camal 24 sac ma trade gareyn kartid oo wuxuu leeyahay xilliyo qaar oo trade lagu ogol yahay. Sidoo kale inta waxaa xusuud mudan akoonka swap free ayuu leeyahay oo qaybta akoomanka islaamiga ayuu leeyahay oo wax swap aanan lahayn asana waa furo kartaa. Swapkan waa muhiim maadaama annaga aan nahay dad shareecada islaamka ku dhaqmo oo dad muslimiin ah ribada iyo waxaan iska ilaalino waa muhiim. Qaybtan ayadana waxaa waaye 50% discount ayaad helaysaa haddii aad retake sameynayso. Laakiin optionkan waxay ku xiran tahay in faa'iido $1000 wixii ka badan aad sameyso. Haddii $1000 wax ka yar aad sameyso 50% kan heli doontid oo lacagtaasi ma heli doontid discount lagu sameynayo. Inta ujeedid no minimum trading days ma jirto wax oo maalmo kugu xadidan 40kaas biri lagu qabto haddii aad 5 biri aad gudahooda aad ku sameyso $2000 qaybtii kale ayaad ugu gudbaysaa oo ah 40 biri walba kadib in akoonkaaga la fiiriyo oo $1200 inaad ku darto. Marka wax inta dad ujeedid no country restriction ma jiro wadan xayiraad uu ka saaran yahay. Traders can trade news sidoo kale newska oo ku trade gareyn kartaa oo wax problem ah ma laha. Newsada waa lagu trade gareyn karaa wax caqabad halkaas ma jiro. oo sidoo kale waxaa ku qoran traders will not be liable for losses macnaha khasaaro allaala khasaarada akoomanka u geysatid adiga mas'uul kama tihid. Wax allaala waxaad khasaaro u geysato akoonkaasi ayaga ayaa mas'uulka ah oo khasaaradooda. Sidoo kale brokerka isticmaalaan waa state broker wax commission ahna lagama rabo. Commission akoomanka ragama saarno oo commission ma laha akoonkani. Spreadkiisana waa spread iska yar. Haddii akoonkaaga islaamiga uu yahayna waxaa isku heli doontaa swap free ah iyo wax commission aan laga rabin. Commission laan iyo swapkaas oo ku free ah ayaad isku heli kartaa. qaybtan paymentska haddii aan fiirino payments methodka ama qaybta qaabka lacag bixinta bangi kale ayaa ku bixi kartaa USDT ayaa ku bixi kartaa ama Tether qofka soo taqaanid PayPal-ka WebMoney Future Wave iyo Perfect Money dhammaan optionskani lacagna waa ku bixi kartaa withdrawal-kaagana waa ku bixi kartaa. Sidoo kale akooman kale wuxuu ugu duwan yahay EEA-ga iyo indicatorska inaad isticmaasho waa lagu ogol yahay. Haddii aad qof dadka ku trade gareeyo EEA-da aad tahay oo EEA-dan expert ku ah oo aqoon fiican u leh iyo indicatorska haddaad isticmaasho indicatorskan waxaa filaya inaad loo yaqaano waa indicator ama suuqa kuu sheego ama raboodo oo la isticmaalayo waaye. Haddii aad isticmaalaysid EEA-dan indicatorkan waa lagu ogol yahay. Withdrawal methodka saa ujeedid bank wire transfer waaye local bangi waa ku heli kartaa oo dhammaan haddii aad bangiyada Soomaaliya ka haysatana lacagtaadi waa ku heli kartaa bank transferka USDT lacagtaad ku heli kartaa PayPal WebMoney Future Wave iyo Perfect Money. Faa'iido qaybsiga sida ujeedin waa 50-50 oo waxaa loo kala qaadan doonaa shirkadda 50 iskale iyo adoo 50 iskale. Qaybtan aan ka gudubno oo qaybta waxaan fiiri doonaa akoomanka iyo qiimahooda. Sida ujeedin akoomanka waa kana akoonka koowaad waxa waaye swap akoon waaye. Swap ayuu leeyahay waa £269 waa lacag u dhigmata almost $358. Akoomanka islaamigana waa £349
والعب وليوم المستفر بقول إيش يعني فرضه so برنامج كان siduu u shaqeeyaa how this work qaybta hoose aan u socono so already warbixintaani hore ayaa kuugu soo sharxay qaabka barnaamijkan u shaqeeyo sida u jeedid haddii aan isla fiirino pay one time fee and get your funded account hal mar ayaa lacag subscription ka bixinaysaa hal mar keliya ayaad bixinaysaa oo monthly subscription lagaama rabo hal mar lacagta markaad bixiso oo one time lacagtii aad sameyso oo pay one time kii aad bixiso waxaad heli doontaa account funded ah oo live ah ma aha demo account real ayaad heli doontaa marka accountkan realka ah waa account funded ah oo shirkadda ay leedahay hit profit target $2,000 soo samee $2,000 within 40 bir gudahoodana ku samee kadibna lacagtaadii la bax oo withdraw samee so kadibna waxaad ka mid noqon doontaa markii aad $2,000 sameyso oo aad targetkii gaarto oo 40 bir gudahooda ku sameyso lacagtaadana waa la bixaysaa kadib waxaad ka mid noqonaysaa Bluefix contract trader markii Bluefix contract trader markaad noqoto kadib waxaa kuu bilaabanayo in $1,200 aad ku sameyso 40 bir walba kadib 40 bir walba kadib $1,200 ayaa lagaa rabaa inaad sameyso marka 40 bir markay kugu dhamaato akoonkaagii waa la fiirinaa oo $1,200 inay ku jirto ayaa lagaaga baahan yahay si akoonkaagii aad ugu sii shaqaysato so ayadan in isla fahanaa rajeynaa oo qodobadii hore aan si fiican kugu soo sharxay waaye so inta waxaa ujeedaa the account remains your by contract for as long as you maintain a profit balance of $1,200 marka akoonkani adiga adaa iska leh wax monthly subscription ee lagaamana rabo ilaa aad akoonkaagii ka joogteynayso mar waliba 40 bir waliba kadib in $1,200 ay ku jirto $1,200 inay ku jirto macnaheedu waxa waaye 40 bir kadib markuu dhamaado akoonkaagii waa la fiiri doonaa marka la fiiriyo waxaa laga rabaa faa'iido $1,200 inay ku jirto haddii faa'iidada $1,200 aysan ku jirin akoonkii way kaa xiri doonaa raggan marka waxaa sameyn kartaa si xariiftinimo ah hal mar ayaa targetka gaari kartaa oo tusaale ahaan $1,200 aa sameynay $1,200 markaad sameysid oo aad $1,200 aad sameyso lacagtaani mala bixaysid waayo 40 beri waliba kadib si akoonka aad u sii haysato oo akoonkaagii aan wax subscription waxna lagaaga rabin aad sii haysato waxay raggan kaaga baahan yihiin in faa'iido $1,200 ay ku jirto marka waxaad sameynaysaa hal mar $1,200 akoonka ku daani kadib waad sii trade gareynay markaad sii trade gareyso $1,200 kale haddii aad sameyso 40 beri kadibba $1,200 ayaa la bixi $1,200 kalena akoonkaagii ayaa ku ilaalinaysa si aan lagaaga xirin inaan isla fahanaa rajeynaa fikrad fiican waaye so marka waxaa sameyn kartaa 40 beri waliba kadib maadaama isha lagugu qabanayo lagu fiirinayo in aad tahay qof profitable ee akoomankii lagu dhiibtay one time ka ahaaye inaad lacag ka sameynayso iyo in kale waxaa loo baahan yahay waxay tahay inaad 40 beri waliba kadib akoonkii $1,200 aa ku jirto $1,200 is easy marka leverage-kan loo fiiriyo waa fududahay oo isbuucyo 2 isbuuc aad ku sameyn kartaa waa haddii ay gacantaadii fadhiso oo aqoontii aad leedahay haddii aadan aqoontii lahaynin oo aad qof signal ku tiirsan aad tahay fadlan lacagtaadii ha iskaga khasaarin meeshaani ama barnaamijkan qofka ka bixi karo waa qof gacantiisa fadhiso aqoontiina leh haddii aadan aqoontii lahaynin iska dhaaf waxa iskaga khasaarin anaa ku dhayo waxba iskaga khasaarin waayo maba sameyn kartid marka qofka haddii gacantiisa fadhiso waxba ma aha wuu sameyn karaa $1,200 oo 2 bilood la siiyo so haddii gacantaada fadhiso waxaa kula talin lahaayay inaad kusoo birto barnaamijkan oo waayo waad dareemi kartaaba aqoontii suuqa waa leedahay waa easy waad sameyn kartaa $1,200 wax ma aha so marka waxaad sameynaysaa $1,200 ka mid akoonkaagii ku ilaalinaysaa waa iskaaga tagaysaa kadibna faa'iidada kale extra sameynaysaa kasoo qaad $1,200 aan sameeyey akoonkaygii ayaan ku ilaalinayaa oo 40 bir waliba kadib markii akoonka la fiiriyo $1,200 ay u jirto kadib waxaan bilaabayaa inaan sii trade gareeyo lacagta aad sii samaysay kadib la bax laakiin $1,200 meesha iskaaga dhaaf si akoonkaagii aad ugu ilaashato haddii aad tahay nin aqoonti skills iska leh 40 bir walbana sameyn karana lacagtaadii la bax wax problem ma aha oo aqoontii ayaa leedahayba 40 bir kadib waa sameyn kartaa so ayadana waxaan rajeynaa inaan qodobkan isla fahnay haddii aan kasii gudbo oo aan imaano qaybta retakeska sida u jeediin meeshan waxaa ku qoran at least $1,000 sameey
afartan beri gudahooda si aad 50% discount aad u hesho. So waxaani wax saas muhiim nooma aha oo muhiimada kaliya waxa waaye haddii $1 aad sameyso oo waqtigiina uu kaa dhamaado afartankan beri uu kaa dhamaado tookada labaad oo aad akoonkii aad rabto inaad qaadato 50% oo discount ah ayaad helaysaa. So dhankan kalena ayadana waxaa ku qoran akoonkaagii haddii aad $1,200 oo contract trader aad noqoto so oo aad afartan beri akoonkii aad haysato waxaa laga rabaa mar walba $1,200 akoonkii inaad ku jirto si akoonkaagii oo aad usii wadato. So meeshani waa shaxdii hore aan kugu sii sheegayay marka dadkani $1,200 afartan beri kadib akoonkaagii way fiirinayaan haddii aysan akoonkaagii afartan beri kadib aadan $1,200 ku darin akoonkii way kaa xirayaan lacag full inaad bixiso waaye. So marka waxaa sameyn kartaa sida hore aan kugu sheegay $1,200 oo kamid ah ayaa akoonkaagii ku ilaalinaysaa $1,200 aad sameynaysaa lacagtaas lama bixaysid wixii kasii dambeeyo ayaad trade gareynaysaa oo lacagaha kale aad sameyso waa lasii bixi kartaa $1,200 na akoonkii ayaa ku ilaalin kartaa haddii gacantaada ay fadhiso oo aad kalsooni isku qabtane aad mar walba sameyn kartane $1,200 na la bax afartan beri waliba kadibna akoonkaaga ku dar. So waa kasii gudbaynaa qaybta withdrawal-ka ayaa imaaneynaa. Withdrawal-ka sida ujeed waxaa meeshan ku qoran haddii Bluefix contract trader aad noqoto oo aad $1,000 aad soo aad $2,000 aad soo sameyso waxaa lagaa rabi doonaa afartan beri waliba kadib si akoonkaaga lacagta aad ugula baxdo inaad $1,200 ku darto kadibna waqtigaa rabtid ayaa lacagtaada la baxaysaa. So $1,200 markii aad lacagtaada ku dartane lacagta waxaa loo kala qaybsan doonaa 50% ah oo dhankaagii wixii kugu soo aado ayaad ka qaadanaysaa. Sidoo kale inta waxaa ku qoran we offer weekly payout lacagtaadiina waxaad kula bixi kartaa si weekly ah oo wax problem kuma ku jiro oo isbuuc walba ayaa faa'iidada la diraa maalinta khamiista ayaa ugu dambeyso isbuuca si maalinta jimcaha lacagtaadii aad u hesho. So jimco walba lacagahana waa la diri doonaa oo week walba waxaana loo diri doonaa ama qaab bank transfer ama PayPal ama bartilmaameed ama Wave ama Flutter waiver ama USDT oo Tetherkan ah. So aan ka socdo ayadana qaybtan withdrawal-ka waxaan rajeynaa inaan isla fahnay. So haddii aan fiirino qaybta drawdown-ka wax waqti kuma dhuminayno lacagta ama khasaaraha lagu ogolyahay drawdown-ka waa $800. So $800 haddii aad akoonka khasaariso habad ayaa ka baxaysaa oo akoonka waa laga xiraa. Dhankan kale waxaa ka hadlaysaa ama ku saabsan yahay leverage-ka waa one of five ma jiro trade ama wax lot size restriction ma jiro leverage-kaaga inta trade uu ku siiyo ama inta aad awoodo ayaad ku trade gareyn kartaa oo wax xadidaad ee dhankaas kama jirto. Leverage-ka inta ku siiyo ayaad qaadan kartaa oo trade ma jirto trade lagu cadimayo ama lagu dhahayo lot ku gal ama hebel lot ku gal. So dhankan waxaa ku qoran brokerka shirkadda isticmaalaysa oo Trinity Global ah kaasoo regulator ka haysto Australia oo BVFCA or broker spread are very competitive Trinity Global. So brokerkan waa ogtahay haddii Bluefix aad akooma ka haysato brokerka aad sida caadiga aad ku trade gareynayso waaye spreadkiisa iyo kulli waa ka warqabtaa. So qaybtaani halaasay ku saabsan tahay qaybtaani waa conclusion wax macluumaad saas weyn ku jirto. Haddii qaybtan su'aalaha aan imaano tusaalaha inta waxaa ku qoran what is the leverage-ka maxaa waaye. So waxay leeyihiin our leverage for this is 10 years university package is one of 1.5 waaye maadaama productigan ay ugu magac dareen sanad guuradoodii ayaan leverage-koodii waa 1.5 waaye kuwii horena wuxuu ahaayay 1.3. waxay dhaheen is this instant funding or evaluation waxaana wax instant oo lagu maalgelinayo miyaa mise wax evaluation waaye dadka qaar inay ku wareeraan la yaabaan ay dhahaan evaluation miyaa waxa evaluation ma aha uusan evaluation ku ahaynin markii aad $2,000 sameyso lacagtaadii waa la baxaysaa oo waa la kala qaybsanaya sida caadiga challenge-yadane waa inaad 2 challenge soo martaa 2 challenge markaad martay kadib ayaad akoonkii awoodaa markaad lacag ka sii sameyso bishii saddexaad markaad lacag ka sameyso kadib inaad lacagaha kala baxdo. So marka waxay ku leeyihiin this is one time fee waaye instant funding waa horaan laga maalgelinaa akoomanka ku gareynaysidna waa akooman live so traders waxaa laga rabaa inay $2,000 sameeyaan si lacagtooda ay ula baxaan kadibna ay u noqdaan Bluefix contract trader. So inta wuxuu leeyahay how does the profit target go siduu u shaqeeyaa barnaamijkani oo profit target-ka the profit target to Bluefix the first profit target to become a Bluefix contractor
si aad targetkaaga ugu horeysa aan blue chips contract trader noqoto waxaa lagaaga baahan yahay inaad $2,000 sameyso wixii intaas ka dambeeyana waxaa lagaaga baahnaan doonaa keliya $1,200 inaad sameyso markii aad $2,000 sameysan lacagtaadii waa la bixi kartaa $1,200 markaad sameysana lacagtaadii xil walba ayaad la bixi kartaa sidoo kale su-aasha afraad waxaa ku qoran macquul ma tahay anoo markaa monthly subscription ka haysto inaan barnaamijkan ka qayb galo haa waa ka qayb gali kartaa oo lagu ogol yahay waa iibsi kartaa su-aasha shanaad ayadana waxay tahay I purchase ma iibsan karaa wax ka badan hal akoon ama 2 akoon ma iibsan karaa sidoo kale waxaa ujeedaa sida hadda qof walba waxaa loo ogol yahay in hal akoon uu ka furto barnaamijkani wax discount miyaa jiro markii aan barnaamijkan kula soo laabanayo haa discount wuu jiraa waa haddii aad ugu yaraan aad sameyso $1,000 iyo wixii ka badan 40 bil gudahoodna aad ku sameyso waxaad heli doontaa 50% oo discount ah sidoo kale retagna waad qaadan doontaa oo akoonkii ayaad dib u heli doontaa si aad mar labaad aad u sameyso $2,000 haddii ka yar aad sameyso oo aad akoonkii aad ku darto sida meesha ku qoranne oo aad tusaale ahaan sameyso $1,000 wax ka yarne lacagta oo full ah ayaad bixin doontaa sida meesha ku qoran wax trading hours miyaa jiro oo xadidaad oo tradeada ma jiraan sida jawaabta ku qoran waxaa ujeednaa inuusan jirin wax trade ku xadidayo trade-ka furato aad xiri karto maalinta sidii trade-ka furto aad xiri karto trade-ka furto aan dhahay sorry maalinta isniinta aad xiri karto maalinta jimcaha laakiin weekend-ga lama ogolo weekend-ga ma la ogol yahay inaad trade la hayo maya lama ogolo weekend-ga oo trade-yadaada waxaa lagaa rabaa 9 PM London time inaad iska xirto report-yada iyo script-ga ma isticmaali karaa report-kiiska iyo script-ga lama ogolo package-kan ma isticmaali kartid su-aasha kale waxa waaye iyadana is there any account wax account growth barnaamijkan ma jira oo akoonkaaga ii kobcinaya hadda ma jiro su-aasha kale waxaa waaye 11aad khasaarahayga ma la soo kabaa sida akoomaka caadi monthly subscription-ka baa u bartay maya wax refinance ma jiro oo khasaarahaaga lama soo kabaayo hedges ma sameyn karaa hedgeska macnaha waxaa waaye in euro USD aad sell iyo buy u gasho oo labada dhinac si opposite ah ugu trade gareyso maya lama ogolo spread-ka ka waran spread-ka sida caadiga ah waa broker-ka hadda ay isticmaalaan internet-ga spread-kiisa uu yar yahay su-aasha 14aad wax loodsaas xadidaad iyo wax ma jiro sida ujeediin wax loodsaas xadidaad iyo wax ma jiro loodsaskana waxay ku xiran tahay lacag walba iyo currency pair-ka iyo margin-ka akoonka ka banaan sidoo kale waxay kaloo ku xiran tahay exchange-ga sida saxda ah u kala gargaartana waxaa waaye inaad akoonka live-ka akoonka aad qaadato aad fiiriso aad ku trade gareyso haddii aan kasii socono when I lost the account akoonkii ma khasaari karaa oo ma lumin karaa haa akoonka waa khasaari kartaa akoonka waxaa ku khasaari kartaa laba midood midda koowaad waa inaad drawdownkii $800 aad akoonkii khasaariso midda labaadna akoonka aad ku khasaari kartana waxay tahay in trade aan lagu ogolin weekend-ga camal aad trade haysato midda kale aad ku khasaari kartana waxaa waaye markii aad blue chips contract trader aan noqoto in akoonkaagii 40 bil walba kadib ay $1,200 ku jirto haddii ay ku jiri weysana akoonka waa lagaa xiraa sida hore kuu sheegay halka keliya waxaa waaye barnaamijkan $1,200 markii aad tusaale ahaan markii ugu horeysa aad gaarto inaad akoonkii u daaso oo aadan la bixin wax allaale wixii ka dambeeya oo aad profit aad sameysan akoonkaaga la baxdo $1,200 aad akoonkii ku ilaaliso barnaamijka waa kana funding capital waa $20,000 waaye lacagta ku bilaabaysid buying powerkiisa akoonka $100,000 waaye $2,000 lagaa rabaa markii kuu horey kadib $1,200 lagaa rabaa 40 bil walba kadib $800 khasaaraha lagu ogol yahay guud waaye 24 saac ayaad trade gareyn kartaa khasaaraha adiga mas-uul kama tihid 50 ayaa loo kala qaadanaa si weekly lacagtaada ula bixi kartaa MT4 ayaa lagu trade gareynaa 29 beris ayaad ku trade gareyn kartaa trading support ayuu leeyahay iyo indicator aad isticmaali kartaa retagna waa uu jiraa waxaa filaya inaan isla wada dhameynay hal mar website-ka ayaan tagi doonaa website-ka ayaan isla fiiri doonaa kadibna videogii ayaan iska soo gagabeyn doonaa sida ujeediin website-ka qaybtaana waa kana oo meeshan waxaa ku qoran blue chips waxay u dabaaldegaysaa 10 sekunadii kasoo wareegatay aas-aaskeeda 10 sano jeesatay sida ujeediin hal mar lacagta bixi oo akoon $20,000 hay akoonkana waa akoon fadhi maaha dhema 40 bil ayaad haysataa 50-50 ayaa lacagtana loo kala qaybsanaa wax nominal trades ma jiro daily drawdown ma jiro oo maximum lot kaliya ayaa jiro barnaamijka waa kana funding capital-ka waa $20,000 buying powerkiisa waa $100,000 withdrawal-ka lacagta lagaa rabo marka ugu horeyso inaad sameyso si aad lacagtaada ula baxdo $2,000 kadib $1,200 ayaa lagaa rabaa 40 bil kadib
khasaaraha guud waa $800 trading hours waa 24 saac Total liability-ga waa 0 faa'iidada waa 50 si usbuucle MT4 ayaad ku trade geli kartaa 29 pairs akoomankana waa kana mid alla midka rabtani ayaad subscribe garay kartaa good funding ayaa leedahay bal iska ilaaliya xag swap iska ilaaliya aniga waxaan u leeyahay akoomanka swap free inaad qaadato barnaamijkan in qaabka u shaqeeyana already mar hore ayaan ka soo hadlay oo salaadkii hore ayaan ugu soo sharxay iyo jawaabahan iyo su'aalaha dhamaantooda waxaan rajeynayaa muuqaalkani inaad wax ka fahanteen oo aad barnaamijkan cusub iyo qaabka u shaqeeyo aad kala dhex baxdeen fadlan haddii aad cusubto channelka subscribe saar haddii aad su'aalo wax qabtana commentka video ku soo qor telegramkiina ku soo biir waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidaysteen muuqaalkan meeshan ku soo gudbina assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh